Dagaal qaraarsan ayaa mar kale ka qarxay Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose halkaasi oo isku fara saareen ciidamo ka wada tirsan kuwa daraawiishta ee maamulka Jubbaland waxaase la sheegaa inaysan ka dhashay khasaare kala duwan ee dhimasho iyo dhaawacba isugu jira. Ciidamada isfara saare ayaa lagu sababeeyay arrinta ugu weyn ay tahay aanooyin qabiil ee darteeda iyo sidoo kale arrimo oo dhul ee quseeya ee u dhaxeeya laba beelood isla markaana kuwaas oo sababtay inay ugu dambeyntii ciidamada ku wada tirsanaa daraawiishta maamulka Jubbaland ay u kala saftaan reerahooda isla markaana halkaasi ay isku far saaraan. Dagaal aan waxba la isku reeban oo la isku ruqaansamay sidoo kalena dhimasho iyo dhaawac leh ayaa kala gaaray labada beelood ee halkaasi ka dagaalamay. Maamulka Jubbaland ayaa wax war ah weli ka soo saareen arrinta dagaalka ka dhacay Ras Kamboni u dhaxaysa ciidamada daraawiishta kuwa maamulka ee Jubbaland. Soo dhawaada daawadayaal, halkani waa RNN Somali TV. Marka hore intaan u gudagelin faahfaahinta warkan, like saar muuqaalka oo channelka subscribe dha hadaa nagu cusubtiina nagu soo biira mahadsanidin. Ciidamo ka wada tirsan kuwa maamulka ee Jubbaland ee daraawiishta ayaa la sheegay inuu ku dhexmaray dhexdooda dagaal qaraar kuwaas oo la sheegay inay isku fara saareen ciidamada dhexdeeda ee deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo la sheegay inuu ka qarxay dagaal xoogan kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac isugu jira isla markaana la sheegay in weli sidoo kale halkaasi uu ka socdo dagaalka. Ujeedada ugu weyn ay tahay sababta dagaalka ka dambeysana aanooyin qabiil iyo sidoo kale dhul ay isku haystaan laba reerood kuwaas oo la sheegay in ugu dambeyntii ciidamada daraawiishta ee maamulka Jubbaland ay u kala saftaan ee labada dhinac. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose kaas oo u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan kuwa maamul goboleedka Jubbaland. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba garab oo ka wada tirsan daraawiishta Jubbaland waxaana ka dhashay khasaare leh dhimasho iyo dhaawac. Wararka ayaa sheegaya in dagaalkan uu salka ku hayo aanooyin qabiil iyo muran dhul oo ka taagan halkaas oo ay ciidamadu isku qabteen. Inta la xaqiijiyay ugu yaraan 2 askari ayaa ku dhintay dagaalkan waxaana ku dhaawacmay tiro kale oo sidoo kale ku kala tirsan labada dhinac ee ku wada dagaalamay halkaasi. Xaaladda deegaanka ayaa ah mid aad u kacsan waxaana ka socda dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeedo oo ay sidoo kale wadaan ciidamada Jubbaland oo ka wada dagaalamay magaalada. Dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay Jubbaland oo ku aadan dagaalkan ku dhex qarxay ciidamadeeda ee sababay khasaaraha leh ee dhimashada iyo dhaawaca. Deegaanka Ras Kamboni ayaa horey u martigeliyay dagaalo dhexmaray ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland kaas oo sababay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale in ciidamada ka tirsan kuwa dowladda ay firxad ku galaan gudaha dalka Kenya. Jubbaland ayaa haatan waxaa ka jira xiisado xoogan waxaana sidoo kale ugu daran midda gobolka Gedo oo mar kale oo soo rogaal celiyay waxaana saaka dagaal u dhaxeeyay ciidanka Jubbaland iyo kuwa xooga dalka uu ka dhacay gudaha degmada Garbaharey ee xarunta gobolkaasi. Dagaalkaas ayaa si gaar ah sidoo kale u dhexmaray ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada iyo kuwa kale oo taabacsan wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga Jubbaland oo dhinac ka degan magaaladaasi iyada oo ku dhintay 1 askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda waxaana dhaawacyo kale ay soo kala gaareen askar kale oo labada dhinac ah. Si kastaba dagaalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan ay socdaan wada hadallo u dhaxeeyay Muqdisho iyo Kismaayo sida uu xaqiijiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuwaas oo ujeedadeedu yahay in xal waara lagu gaaro ka hor doorashooyinka Soomaaliya ee 2026. Ciidamada ayaa la sheegaa in tirada rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca la helay ay tahay kaliya dhimashada 2 askari kuwaas oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada daraawiishta ee kuwa Jubbaland halka weli ay jiraan aan la xaqiijinin khasaarooyin aad u tiro badan sidoo kalena dad rayid ah oo halkaasi ku sugnaa ayaa la sheegay inuu soo gaaray khasaaro xoogan. Ciidamada ayaa la sheegtay in sidoo kale ay u kala safteen 2 garab taas oo sababtay inuu ka qarxo dagaalka u dhaxeeya labada dhinac. Labada garab ee kala saftay waxay u kala safteen sida la sheegay reerahooda oo ku kala tirsanaa laba beelood ee degta maamulka Jubbaland kuwaas oo isku haysta dhul oo la sheegay inay sidoo kale ay ku murmeen muddooyinkii dambena ay isku haysteen dhulkaasi oo la sheegay in reerba reerka kale oo isagoo xaq u leeyahay dhulkaasi uu ku andacoonayay balse ugu dambeyntii ay maanta isfara saareen ciidanka.
kala shaki ayaa soo kala dhexgalay ciidamada kuwa daraawiishta ee maamulka Jubbaland ee ku sugan deegaanka Ras Kamboni. waxaase la sheegaa in sidoo kale arrintaasi ay salka ku hayso in dowladda federaalka Soomaaliya ay sababtay kicitaanada reerahaasi. maamulka Jubbaland oo arrintaa ka yaaban ayaa weli wax waraa soo saaray, sidoo kale wax waraa laga helin deegaanka Ras Kamboni maadaama la sheegay in ciidamada daraawiishta Jubbaland ee labada garab ay u kala saftay reeraha la sheegay inay xirteen goobihii ugu muhiimsanaa ee magaaladaas ama deegaankaasi Ras Kamboni ay kala xirteen, taasoo sababtay in la heli waa isgaarsiin rasmi ah laga heli waa iyo xogo rasmi ah ee deegaanka, laakiin weli ay sorfadhiyaan labadan maleeshiyaad ee ciidamo kuwaasoo laga sugayay inay sugaan amniga dalkoo idil halkaasi ay ka sugaan amaba amniga ee maamul goboleedka Jubbaland, balse isku bedeleen in mid kastaba uu reerkiisa u dagaalamo sidii uu dhulka isagu u lahaa. xaaladda ayaa cakiran halka dowladda federaalka Soomaaliya ay weli isku dayayso in sidoo kale Jubbaland ay mar kale ay gacanta ku dhigto, laakiinse dagaal uu ku dhex maray ayadana mar kale deegaanka Garbahaare ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaasi isku farasaaray ayaa sidoo kale xilli uu socday wadahadal u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. lama oga sababta ka dambeysay in mar kale oo dagaalkan uu qarxo xilli uu madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu Jubbaland uu la gaaro xal waara kahor intaan la iskugu imaan doorashada teendhada Afisiyoni ka dhici doonto ee sanada 2026. balse arrinta ayaa u muuqata in weli Xasan Sheekh Maxamuud uu heli waayay danihii gaarka ahaa oo isagu uu doonayay iyo xalka oo ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka doonaysay inay la gaarto maamulka Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa isna go'aankiisa ku adkaysay ugu dambeyntii inuu xilka sii joogi doono, isagoo sidoo kalena shuruudo adag u hordhigay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo ah in madaxweynaha Soomaaliya haddii uu doonayo wadahadal iyo wada xaajood inuu la galo Jubbaland inuu mar kale shuruudaha oo Axmed Islaam uu wato kow inuu aqbalo inuu Axmed Madoobe uu yahay madaxweynaha sharciga ee Jubbaland ee 5 sano soo socota, halkaas oo sii fadhin doono isla markaana madaxtooyada Jubbaland isaga maamuli doono, halka dowladda federaalka iyo xulufadeedaba ay ugu horeyso beesha Mareexaan oo degta gobolka Gedo oo arrintan ay ka soo horjeedaan isla markaana ay diidan yihiin in Axmed Madoobe halkaasi uu sii joogo, bedelkeedana ay doonayaan in madaxweyne ka soo jeeda beesha Mareexaan oo halkaasi ka taliyo ayaa arrinkan la xumaatay, taasoo la sheegay inay sababtay dagaalkii maanta ka qarxay ee gobolka Garbahaare, ugu dambeyntiina sababtay inay isku dhacaan ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya.